السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وعنا صاحب بيال ملك استوى دنيا كشوفتان بل عياري بان قد قلي دونا وحن سو سوغي اسكواد كبريمير ليج ايا مانتا لا سمينيو سو سوغيو بل بريمير ليج با سو لابتay ciyaaraha warkii ugu dambeeyay maanta iskuadka Premier League Liverpool oo bilowga ciyaaraha ku bilaaban doonta ciyaaro oo kayba waayahay miisan ka difaacan doonaan Manchester City ciyaaraha kala United iyo Chelsea iyo Arsenal ciyaaraha iskuadka maanta iskuadka Premier League bal la sameeyo qamiisay marka iskuadka markaan soo dhameeyso hal mar leeyaa isku wada ciidamad baan islaha marka hal mar ciidamada soo tuurbaan islaha inta kala kali ku soo tuur leed ciidamada marka iskuadka Premier League la sameeyay ayaan ku hormari doonaa iskuadka Premier League ayaa goordhow la soo saarayo ya sanad ciyaareedka kan aad iyo aad baa isha lagu hayaa Premier League maanta kale marka iskuadka la sameeyo qof kasta wuxuu dhigi jiray kan aniga qaadaya horyaalka aniga qaadaya inkastoo qof kasta uu yiraahdo bilowga ciyaaruhu yiraahdo aniga horyaalku qaadaya laakiin waa loo kala badan yahay Real Manchester wuxuu dhigi jiray faanayo muutayigu kan anaga iska yiraahdo Arsenal baa kaga dar wuxuu leeyahay halka hal iska dhiga Premier League ku leeyahay Liverpool ku dheedo soddon sano waxay dhigi jireen anaga iskale inkaarti soo socdo soddon sano kadib maana dib af jireen hadda awood bay waxay bidayaan awood bay waxay leeyihiin anaga difaacanina bariyahana tababar gooni bay wadaano fursad bay haystaan oo ay helin kooxaha kale Premier League inay waaweyn bariyahana tababar bay ku maqayino kulay City waan arki doonaa sanadkan ciidamad maan u lahayn inay shaqo qabsan doonto hadii kale waan arkayaa Sportska iyo kuwa kale ya Manchester United ku dheedo waa inay ku soo laabataa Premier League qaadistiisa kulay hadda saada laga bixi kara Premier League way ugu yaraan la arkaa kala iibsiga kooxaha markaad aragto oo suuqa la xiro labada ciyaar ugu hore marka la arko ayaa la saadalin karaya iskuadka yaani sida Premier League sanadka cid qaadi kartid cid kaleba waayahay iskuad adag baa ka dhacay toddobaadka ugu horeeya Premier League waxa la furi doonaa 12-ka baa la furayaayo September baa la furaya hadaba toddobaadka ugu horeeya ciyaaraha Premier League waxa lagu furayaa kulamada kan warqadii maalin wareegaysa been noqotay hadaba Man United kulankeeda ugu hore waxay la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta Burnley wana 12-ka September inkastoo Man United ciyaarta hore aan ciyaari doonin iyo Man City ba labada kooxoodba toddobaadka xiga ay ciyaari doonaan ciyaarahooda laakiin iskuadka guud ahaan toddobaadka ugu hore Premier League sida loo ciyaaray baan akhrinayna toddobaadka ugu hore waa wax ugu miisaan ogtahay kulamada toddobaadka ugu hore dhacay baan eegina laakiin Manchester ciyaarta isbuuca dambe ciyaari doonta maxay yeelay isbuuca koowaad marka la ciyaaro ka ku xiga ciyaar doonta iyagu City maxay yeelay Europe bay ku mashquuleen United waxay kula ciyaari doontaa ciyaarteeda ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Burnley Crystal Palace Southampton baa ciyaaraya Arsenal waxay la ciyaaraysaa Fulham oo guriga Fulham bay aadi doontaa Man United waxay aadi doontaa guriga Burnley bay aadi doontaa Liverpool oo ah Champions xooga sanadka Premier League ku qabsaday noqday kuwii ugu horeeyay Premier League ku qaada iyadoo Premier League ay ka harsatay kulamo badan taariikhda ugu horeysay la sameeyay waxay la ciyaarayaan kooxda Leeds oo Anfield bay ku bilaabanayaan 12 September ya Leeds bay la ciyaarayaan soo dalacsan ciyaareedkan Man City ku dheedo ciyaarteeda iyadoo waxa isbuuc bay nasanayaan kadib isbuuc dambe ciyaarayaan labada Manchester batwaadka hore ma ciyaarayaan toddobaadka xiga bay ciyaarayaan maxaa yeelay Champions League ku mashquulan iyo Europa League Man City Aston Villa Man City waxay la ciyaarayaan Aston Villa Man City xad ku furan doonta Tottenham iyo Everton ayaa ciyaartu wadag waxa lagu ciyaaraya garoonka Sports baa lagu ciyaaraya sidoo kale West Brom iyo Leicester baa isku aaday halka West Ham iyo Newcastle ay ciyaari doonto toddobaadka ugu horeeya Brighton iyo Chelsea baa ciyaaraya Chelsea waxay aadi doontaa guriga Brighton baadi doonta maalinka iyo Ziyad iyo ciyaartiisi baa la daawan doonaayo kulay ilaa hadda waa micnaha saxiixa aan ka helay la hadda suuq kaliibsigu ciyaartu ka dhacay inkastoo kooxu saxiix kale ay sameeyaan laakiin waa Ziyad barigu ay joogo ma taageersana markuu kooxaha weyn ceebeynayo aad baan ugu heli jiray ninkaas sida nafyar naf adeeg wayaan caawda sadadku uu dheelaya Ziyad anu fanis baan u ahay aad baan u jecelahay ninka ciyaartiiso wanigu siyaasiyay ma aragtaa ya marka Chelsea Brighton waa difaac ka soo adkeeyo cunuga ay hawrinne marka Brighton bay la ciyaari doonto Chelsea group Brighton bal adaya Sheffield iyo Wolvesna waa ciyaar kale iyana isha lagu hayo guriga Sheffield baa lagu ciyaaraya marka toddobaadka ugu horeeyay Premier League sida weeyaan waqtiimo Real Madrid Burnley bay la ciyaarayaan Arsenal Fulham bay la ciyaaraysaa Liverpool Leeds baa ciyaaraya City Aston Villa weeyaan weynku Chelsea Brighton weeyaan Tottenham iyo Everton weeyaan inta waa isku adkiye toddobaadka ugu horeeyay ciyaaraha la ciyaarayo weeyaan balse aynu aragno goorma ay ku beegan yihiin darbiyada waaweyn waxaa jira Marisa Derby waxaa jira North London Derby waxaa jira Manchester Derby baa jira xataa waxaa jira North West Derby baa jira oo waxaa jira ciyaaro derby ah oo isha lagu eega oo laba dhinac oo isku wada magaalo ah ay ciyaaraan hadaba Manchester Derby aan ku hormarno Manchester United kulan hor waxay ciyaari doonaan December 12 bay ciyaari doonaan dhamaadka sanadkan ay ciyaari doonaan waa December 12 baa la ciyaaraya Old Trafford baa lagu hormaraya waa Manchester Derby group Man United baa lagu hormaraya 12 December halka uu la ciyaari doono March 6 2022 baa la ciyaari doonaa Itixaad baa dambay doona marka labada ciyaarood waa sida ka haddana adna North London Derby oo
kulankay Tottenham iyo Arsenal ciyaaraan lugta koowaad waxaa la ciyaarayaa December 5 baa la ciyaarayaa 2020 baa la ciyaarayaa oo Tottenham gurigeeda lagu hormarayo Arsenal baa ciyaaraya hay lugta labaadna waxaa la ciyaarayaa Marso 3 iyo 10 2020 baa la ciyaarayaa guriga Arsenal baa lagu ciyaaraya Midtjylland maraysa derby hadan waad Liverpool iyo Everton lugta koowaad waxaa lagu ciyaarayaa October 27 2020 Everton gurigeeda baa lagu ciyaarayaa October 27 u dhacaya maraysadka ugu horeeya derby ee Liverpool iyo Everton lugta labaad waxaa la ciyaarayaa February 20 2020 baa la ciyaarayaa waxaa lagu ciyaarayaa gagada waxaa lagu ciyaarayaa Anfield ee Liverpool haddaan waadno North West Liverpool iyo Manchester United oo kulankaadka loo gaadgaadaysan ciyaareedkan sanadkii dhaw waxay yiraahdeen hadduu Bruno noo joogi lahaa haddii Bruno noo joogi lahaa bay yiraahdeen nimanka maynuna garaacilin waan iska celin lahayn waad ogtii anagu waan iska celi jirnay ay leeyihiin nimanka kahaye waad ogtiine tobini baa ku celi jirnay bay leeyihiin على حال ليفربول يونايتد لوقت كواد وحال عياري دونا غوري انفيلد بالغو عياري ليفربول بالغو عياري غوريدو جنوري 6 iyo 10 laba kulaadkow bay ciyaarayaan Liverpool vs United sanadkan waxay leeyahay anagu Bruno wadana wan marshiyaaleynina oo Greenwoodinina raashaynina bogbaynina istii wali suuq waa ku jirnaa bay leeyihiin marka Liverpool iyo United lugta koowaad waxa la ciyaaraya January 6 iyo 10 laba kulaadkow lugta labaad waxa lagu ciyaaraya Old Trafford May 5 labada kulaadkow baa lagu ciyaaraya halka waa derbiyadii waaweynaa iyo xiliyada la ciyaarayo bay kuwa ka ahaayeen bal wali aan sii wadno ciyaaraha Ingiriiska maanta iskuadkooda la sameeyay haddaba Liverpool toddobaadkii ugu horeeyay waxa lagu leeyahay Premier League aanu ka soo qabano shanta ciyaar ugu horeeyay Liverpool iska jiraya Champions League waxa doonaysa in Real ku difaacataan September 12 Liverpool waxay ku bilaabanaysaa Leeds waxa uu xigi doona Chelsea wuxuu xigi doonto la ciyaari September 19 jaadir baan daawan doonaa miya oo toddobaadka labaad ma derby aan daawanayna Chelsea waxaan daawanayna Liverpool baan daawan doonaa marka Liverpool la ciyaarta Leeds 12 waxay la ciyaarayaan kooxda Chelsea September 6 iyo 20 kulanka saddexaad Liverpool waxay la ciyaarayaan kooxda Arsenal hiya oo way maynaysa ciidamadii waan loo idin ku dhiiday wax kale baa tiinay wallahi Champions waa lagu dhagan yahay Arsenal baa ugu sii xigi doonta كل استحال ليفربول كل أفراد وحيل عيارين أستون فيلا كل شناب وحيل عيارين كوحدة إيفرتون واو وريارين كارو إلهي أمر كيس بس سنة أدوك ورير سناي كرونه والي كوبت بعدين بويان بالله وحدكم قال لهم بالله هيو مركل ليفربول واقع حتى إيفرتون مركل عياران شيف الباكلو كل حدا يلعب عيارين واللحد عياروه رئيس ليفربول ليديس بيلعب عيارين تشيلسي أقول حكته أرسنال بقول حكته أستون فيلا أقول حكته إيفرتون بقول حكته شيف الباكلو حكته والله كلا بحيا دير ما جرت بالله مركان واضنا واشي سنتكي هورو دب عيالات ku qaadeen waxa la kama yeelay baa leeyahay taasna waa taa Arsenal oo kale iyo shantii ciyaar ugu horeeyay hadaan tirino Arsenal Fulham la ciyaaraysa kulan kuwad waxa uu xigi doona West Ham waxa uu xigi doona Liverpool waxa uu xigi doona Sheffield waxa uu xigi doona Manchester City waxa uu xigi doona Leicester waxa uu xigi doona United wariyaha waalidaya qay inta waa kulamada ugu soo horeeyay Arsenal baa dhaxda ka soo qabtay waa kulan kuwad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad iyo toddobaad marka Arsenal balaayada la soo dabadhigay ya wallahi Arsenal Man United balaayada Liverpool maxaa Man City wala inta lidin wada كورميدين والين ربان يا عدان وأدنى من ستي وقدود أن أدنى يا ورمحي كربان عند أرسنال لكن أرسنال ولا يعني صدق ما قشوا أدي أدبل الله صار لسه يمش أرتيتا ونوح كرويان هيا أدنى سيتي وحويان عيارتي ذو هرية مركي عياران ويلا عياران نمانكا اللي يراهدو وحيلا عياري دونان وحيلا عياريان نمانكا اللي يراهدو وحيلا عياريان أستون فيا وحيلا عياريان وقتي كوات مركي يكون كود عياران كدب وولفيس يو Wolves baa u xigi doonta Leicester baa u xigi doonta Leeds baa u xigi doonta Arsenal baa u xigi doonto marka yana waata war kabti karinta baan ku soconaayo war bad naga dhaafto waxa kan war Chelsea aan soo fiiriyo iyana Chelsea aan ka war doono iyana toddobaadkeeda ugu horeeya Premier League maadaama wax aan isku faragistay kulamada ugu horeeya Liverpool wayna kuwan qac ka siinaa Chelsea oo kale kulkeedu ugu horeey Brighton bay la ciyaaraysaa kulkeedu Liverpool bay la ciyaaraysaa keedu ku xigay West Brom bay la ciyaarayaan ka ku xigay Crystal Palace bay la ciyaarayaan ka ku xigay Southampton bay la ciyaarayaan kadib United bay la ciyaarayaan waa ka Chelsea na ciyaaraheedu ugu horeeya weeyaan aan dhaqaaqada ka soo siinaynayo wariyaan oo hore ku weynaa Manchester United miya oo iyana ku dhowda aan eegno iyana toddobaadka ugu horeeya Premier League markay ciyaaraan Man United ciyaaraha ugu horeeya 5 ilaa iyo dhowrka ciyaar ugu horeeya Man United waxay la ciyaari doontaa Crystal Palace markay kulankood ciyaaraan kadib Crystal Palace bay la ciyaarayaan Brighton baa u xigi doonta Tottenham baa u xigi doonta Newcastle baa u xigi doonta Chelsea u xigaysa Arsenal baa u xigaysa oo Chelsea Arsenal baa isku xigay ka war Man United weeyaan laba ciyaar isku xigay bay noqon doontaa كليبا وكايو وقت بدن المومية مدونية بل هدانو سي اغو ميلاها كلا waxa lagu leeyahay 10 ciyaarood baad u daawan doontaa xilli ciyaareedkan Premier League 10 kulanba xiisabay leeyihiin sanad ciyaareedkan Premier League u daawo
Premier League sanad ciyaareedkan 10 kan ciyaareed u gambar dhigu weys walaal Bruno martide iska duurkaaga iska gal beeraha iska falwalaaliya hadda 10 kan ciyaareed Premier League u gambar dhigu weyso shaqa maratid kulanka Liverpool iyo Leeds ee dhacay 22 September gambarkaaga dhigo kulanka Man United Tottenham ee dhacay 3 October 2020 gambar buu leeyahay kulanka Everton Liverpool ee dhacay October 17 2020 gambar buu leeyahay kulanka Man City Liverpool ee dhacay November 7 2020 gambar yaala buu leeyahay waliba kulanka Tottenham iyo Arsenal dhacay December 5 2020 wax kala weeyaan waliba ogow kan United iyo Man City ciyaarayaan December 12 2020 cimad ku tur weeyaan kulkaaye Liverpool iyo kulankeeda iyo ay ciyaarayaan January 16 gambar ma ahane gambar yaalo buu leeyahay waa darbigii England Manchester United iyo Liverpool baa ciyaar Anfield baa lagu ciyaarayay waa 16 January 2020 sidoo kale wayna daawataa kulanka Leeds United dhexmari doona 4 April dabi wayaan lagu la tago maxay Leeds United aad bay isugu tagnaan jireen weligoodba Chelsea Arsenal May 12 lagu la tago kulankaasna gambar buu leeyahay Leicester iyo Tottenham iyana May 3 2020 lagu la tago gambar buu soo leeyahay intaasna waa 10 ciyaarood uga bariga karayso waryahay intaan ku dhaafay sheekooyinka ku aadan Premier League bay ku ka hayeen ma wax kala jira ya balba waa kaayo inta bay hayeen kullu wixii warar ku soo kordha sheekooyinkeena kala caawaan qac ka soo sii doonaayo ya hay caawaan dhac ka soo sii doonaa oo inuu eegi doonaa kullu waa kaaye